kulanti wacan oo wanaagsan meel walba joogtaan ku soo dhawaada saaxiibayaal qodobada ugu doorka roon oo warka galwareed media waxa kamid ah Axmed Madoobe oo ku hoolan sidii dawladda Soomaaliya uu uga hormari lahaa magaalada Bu'aale ee xarunta gobolka Jubbada Dhexe Al-Shabaabna ay ku xogan yihiin Umar Finish oo ku dhawaaqay dagaal ka dhan ah shirkadaha Forex iyo dagaalamayaasha Al-Shabaab dawladda federaalka oo shaacisay in duqeyn lagu burburiyay saldhiggii Al-Shabaab ee Dajuuma ciidamada dawladda Soomaaliya oo ku dhawaaday halkay kaga sugan yihiin ciidamada Jubbaland Mandheera askari ahlu sunno ka tirsanaa oo lagu dilay Dhuusamareeb iyo Al-Shabaab oo gaarisa ka afduubtay wiil la dhashay mas'uul ka tirsan dawladda Kenya haddii aad nagu cusub tahay ama aad nagu soo biirtay fadlan daawade subscribe channelkan si aad u hesho wax kasta oo aan channelkan soo gelina taariikhda waxay tahay 24 bisha 2 Febraayo sanadka 2020 intaad maqasheen iyo qodobo kale ku soo dhawaada saaxiibayaal aan ku bilowno gobolka Gadow ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa maanta howlgal ay ka sameeyeen gobolka Gadow koonfurta Soomaaliya waxay ku tageen oo ay saldhig ka dhigteen xuduudda kala qaybisa degmooyinka Balad Xaawo iyo Mandheera oo ku yaala xuduudda Soomaaliya iyo Kenya ciidamada dawladda ayaa aad ugu dhawaaday goobta ay xuduudda dhanka Mandheera kaga sugan yihiin ciidanka daraawiishta Jubbaland taasoo baqdi ku keentay dadkii xuduudda deganaa oo baqdin awgeed uga barakacay guryahoodii daahir aadan maxamed oo kamid ah dadka ku dhaqan degmada Balad Xaawo ayaa warbaahinta u sheegay in ciidamada dawladda ay la wareegeen saakay xaafadaha Dhabad Xawaashe iyo immigration-ka oo ku yaala xuduudda soona xigta dhinaca Soomaaliya ciidanka dawladdu waxay saakay isku fidiyeen xuduudda ciidanka ayaa la wareegay gacan ku haynta xaafadaha Xashaawe Dhabad iyo immigration-ka oo ka soo horjeeda custom-ka xuduudda oo Kenya ay maamusho ayuu yiri daahir aadan maxamed oo sawir ka bixinayay goobaha ciidamada dawladdu ay la wareegeen iyo ujeedada ay xilligan u tageen ayaa yiri meelaha ay ciidanka dawladda la wareegeen waa wada dheer oo xuduudda ku taala haddana waxay joogaan dhulka xuduudda ee labada dal ay wadaagaan gaar ahaan qaybta Soomaaliya ayay joogaan kuwii kale Jubbaland iyagana waxay ku sugan yihiin meel la dhaho ama deegaan la dhaho BB1 oo xuduudda dhinaca Kenya ku yaala sidoo kale waxa uu yiri laba habeen ka hor ayaa madaafiic lagu tuuray xirada ciidanka dawladda ay ku leeyihiin magaalada Balad Xaawo madaafiicdaas ayay baareen waxayna ogaadeen inaysan Al-Shabaab ka dambeyn oo kuwa Jubbaland ay ku soo tuureen laakiin weerarkii toddobaadkii hore lagu soo qaaday xirada UK ciidanka dawladdu ku leeyihiin magaalada askarta Jubbaland kama aysan dambeyn Al-Shabaab ayaa weerarkaasi soo qaaday daahir aadan ayaa xaqiijiyeen howlgalka ay ciidamada dawladda kula wareegeen deegaanada xuduudda dhaca ayay baqdin ku abuurtay dadkii deegaanka kuwa oo bilaabay in iskaga barakacaan xuduudda waa markii ugu horeysay oo ciidamo ka tirsan dawladda Soomaaliya 4 bishan la wareegay degmada Balad Xaawo ay gaaraan xuduudda degmadaasi ay la leedahay degmada Mandheera ee gobolka Waqooyi Bari Kenya ciidamo uu hogaaminayay wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan oo baxsad ka ah dawladda Soomaaliya 28 Janaayo bishii tagtay ka baxsaday xabsi uu dawladdu ugu xirnaa Muqdisho ayaa halkaasi wuxuu ka wadaa abaabul ciidan oo ka dhan ah dawladda Soomaaliya dawladda ayaa maalmo ka hor gabi ahaanba la wareegtay gobolka Gadow degmooyinkiisa ugu caansan sida Luuq Doolow iyo Balad Xaawo markaana gobolka Waqooyi Bari Al-Shabaab ayaa maanta gaarisa ka afduubtay wiil la dhashay mas'uul sare oo ka tirsan dawladda Kenya warbaahinta maxalliga ah ee dalka Kenya ayaa shaacisay in dagaalyahanada Al-Shabaab wiil dhalinyaro ah oo la dhashay mas'uul ka tirsan dawladda ay jimcihii ka soo afduubteen magaalada Gaarisa gobolka Waqooyi Bari ee dalkaasi saraakiisha laamaha ammaanka ee Kenya ayaa sheegay in wiilkaasi oo lagu magacaabo Daa'uud Bashiir Guure dagaalyahanada ay kala bixeen hooygiisa sidoo kale booliiska ayaa tilmaamay in Daa'uud lala soo aaday dhinaca Soomaaliya isla markaana ragga afduubtay tiradoodu ay gaarayeen ilaa 20 qof dhinaca kale saraakiisha booliisku wali ma carabaabin mas'uulka oo la dhashay wiilkan marka laga tagay in kaliya xogtaas ay bixiyeen wararka qaar ayaa sheegay in Daa'uud Bashiir Guure kooxda Al-Shabaab ay uga sheegisay inuu bixiyay xogta la xiriirta weerarada ay ka fuliyeen gobolka Waqooyi Bari Kenya dagaalyahanada Al-Shabaab ayaa had iyo jeer weerar qasaare geystay ka fuliya dalkaasi gaar ahaan deegaanada dhaca xadka labada dal Soomaaliya iyo Kenya ay wadaagaan markaana Muqdisho gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Umar Finish ayaa dagaal ka dhan ah ku dhawaaqay shirkadaha Forex iyo Al-Shabaab gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Umar Finish oo warbaahinta kula hadlay Muqdisho ayaa wuxuu si kulul markaa uga hadlay isticmaalka adeegga sarifka lacagaha qalaad ee Forex
gudoomiye Cumar Finish ayaa waxa uu sheegay in Forakis ay la mid tahay al-shabaab oo kale isla markaana maamulka gobolka Banaadir aysan u dulqaadan doonin in la dhibaateeyo shacabka Soomaaliyeed isagoona sheegay inay waajib tahay in maamulka gobolku arrintaani markasta ka hadlo sidoo kale gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa waxa uu xusay in adeega Forakis uu halis ba'an ku yahay shacabka Soomaaliyeed isla markaana waxa uu tilmaamay in loo baahan yahay in dadka ku lugta leh ama lacagaha gashtay ay ka fogaadaan si aanan u gaarin dhibaato dhaqaale sidoo hadalka u dhigay Cumar Finish gudoomiyaha gobolka Banaadir oo sidoo kale dhawaan ka hadlay munaasabad ka dhacday Muqdisho ayaa hore u sheegay inuu aaminsan yahay in adeega Forakis uu yahay mid dalka dibadiisa laga soo abaabulay dhibaatana uu ku yahay dhaqaalaha dalka adeega Forakis ayaa ku soo badanaya dalka iyadoo magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka ay haatan ka furan yihiin xarumo badan waxaana sidoo kale adeegan ku sii faafay gobolada dalka madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa xilka qaadis ku sameeyay 3 wasiir madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftigareen ayaa xilka qaadis ku sameeyay qaar kamid ah golihiisa wasiirada isagoona magacaabay kuwa kale oo cusub Laftigareen ayaa wareegto ka soo baxday xafiiskiisa wuxuu xilkiga u qaaday wasiirka waxbarashada Cabdiraxmaan Cismaan Malaaq wasiirka shaqada iyo shaqaalaha Faysal Cabdullaahi Cali iyo wasiir ku-xigeenka waxbarashada Jibriil Maxamuud Aadan xilka wasiirka waxbarashada ayaa loo magacaabay Maxamed Yuusuf Xasan halka wasiirka shaqada iyo shaqaalaha loo magacaabay Cabdulqaadir Cumar Cabdullaahi sidoo kale wasiir ku-xigeenka waxbarashada ayaa loo magacaabay Cabdifataax Isaaq Maxamed madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa sababta xilka qaadistan ku sheegay inay la xiriirto baahiyo loo qabo dardargelinta howlaha maamulka iyo shaqooyinka horyaala ugu dambeyn waxa uu faray wasiirada cusub in si degdeg ah xilalka ay kula wareegaan isla markaana ay si hufan u gutaan waajibaadka shaqo loo igmaday Koonfur Galbeed ayaa haatan la daalaa-dhacaysa dhibaatooyin kala duwan oo ay ugu daran tahay midda amniga waxaana deegaano badan ka haysta kooxda al-shabaab markaana Dhuusamareeb askari ka tirsan Ahlus Sunna wal Jameeca ayaa Dhuusamareeb lagu dilay faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dil askari ka tirsan ciidanka Ahlus Sunna wal Jameeca lagu geystay magaalada Dhuusamareeb oo xarun u ah gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya dilka waxa lagu soo waramayaa inuu geystay askari kale oo ka tirsan ciidamada Ahlus Sunna wuxuuna falka ka dhex dhacay xarunta injiga gudaha magaaladaasi wararka ayaa sheegay in askariga dilka geystay uu ka mid yahay ciidamada ilaalada u ah wasiirka amniga Galmudug Saadiq Sheekh Yuusuf oo isna ka tirsan Ahlus Sunna ila lagu kalsoon yahay ayaa caasimada Oolen u sheegay in dilka uu yimid kadib markii uu muran soo kala dhex galay labada askari oo la sheegay inay qaraabo ahaayeen sidoo kale wararka ugu dambeeyay waxay sheegayaan in askariga ka dambeeyay falkaas ay gacanta ku dhigeen ciidamada amniga isla markaana la xiray weli ma jiro wax hadal oo ka soo baxay laamaha amniga dowlad goboleedka Galmudug oo ku aadan dilka la geystay askarigaasi weli ma jiro wax hadal oo ka soo baxay laamaha amniga dowlad goboleedka Galmudug oo ku aadan dilka loo geystay askarigaasi dhacdadan ayaa ku soo aadeysay iyadoo muddooyinkii dambe xarunta injiga guud ahaan Dhuusamareeb laga dareemayay dhaqdhaqaaqyo xoogan oo ka socda halkaasi dowladda Soomaaliya ayaa shaacisay in duqeyn lagu burburiyay saldhigii al-shabaab ku lahaayeen degmada Dajuuma ee gobolka Jubbada Dhexe war-saxaafadeed ka soo baxay xukuumadda federaalka ayaa waxa looga hadlay duqeyn shalay diyaaradaha dagaalka Mareykanka ay mar kale ka fuliyeen qaybo ka mid ah gobolada Jubbada Dhexe ee koonfurta Soomaaliya qoraalka ayaa lagu sheegay in weerarkaasi dhanka cirka uu ka dhacay meel u dhow magaalada Dajuuma oo ay iska kaashadeen ciidamada Soomaaliya iyo Africom sidoo kale waxa lagu sheegay warkan in duqeyntan lagu dhaawacay ilaa 3 xubnood oo ka tirsan dhaqdhaqaaqa al-shabaab war-saxaafadeedka ayaa sidoo kale intaas ku daray in duqeyntu lagu burburiyay saldhig weyn oo kooxda al-shabaab ay ku lahayd halkaasi toddobaadkan diyaaradaha dagaalka dowladda Mareykanka ayaa duqeymo khasaare badan dhaliyay ka fulisay deegaano dhowr ah oo ka tirsan gobolada Jubbooyinka maleeshiyada shabaabna gacanta ay ku hayaan ugu dambeyntii Axmed Madoobe ayaa raba in dowladdu uga hormaro magaalada Bu'aale oo laga yaabo in dowladda ay ku qabato maamulka madax bannaan kan Axmed Madoobe madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa wado qorshe xoogan oo ku aadan in ciidankiisa ay kula wareegaan gacan ku haynta magaalada Bu'aale oo ah xarunta rasmiga ah ee maamulkiisa ka hor dowladda federaalka taliyaha guud ee ciidanka dowlad goboleedka Jubbaland General Aadan Maxamuud Ibraahim Goochar ayaa sheegay in Jubbaland ay diyaarisay qorshihii ugu dambeeyay al-shabaab looga saari lahaa gobolka Jubbada Dhexe isla markaana maalmaha soo socda ay bilaabi doonaan taliyaha ayaa xusay in ciidanka Jubbaland loo dhameystiray qalabkii ay kula dagaalami lahaayeen al-shabaab isla markaana sanadkan la xoreyn doono deegaano badan muhiimadda qabashada magaalada Bu'aale ayaa ah mid ka baxsan al-shabaab waxayna qayb ka tahay loolanka u dhaxeeya dowladda federaalka iyo maamulka Jubbaland
dowladda oo hadda gacanta ku dhigtay inta badan gobolka Gedo ayaa tallaabadii xigtay qorsheynayso waxa ay tahay sida la sheegay in shabaab ay ka saarto gobolka Jubbada Dhexe oo ay aad ugu xoogan yihiin gaar ahaan magaalada Bu'aale. Dowladda oo aan aqoonsanayn maamulka Axmed Madoobe ayaa haddii ay gacanta ku dhigto Bu'aale iyo guud ahaan Jubbada Dhexe waxay micnaheedu tahay inay maamuli doonto laba ka mid ah saddexda gobol ee Jubbaland. tallaabada xigta waxay markaasi tahay in dowladdu ay ku dhawaaqdo maamul Jubbaland oo cusub sidii hore u shaacisay inay sameynayso kaasi oo noqon doona maamul la aqoonsan yahay oo xaruntiisu ay tahay Bu'aale. daawadayaal waa naga intaa wixii warad nagala socoteen haddii aad nagu cusub tahay fadlan daawada subscribe